munaasabaddan oo ahayd qalinjabinta dufcaddii 12aad ee ciidamada kala duwan ee ka kala socda booliiska laanta socdaalka madaxtooyada Somaliland iyo qaybaha kale ciidamada dalka oo lagu qabtay xarunta tababarka deegaanka Mandera ee Lixle ayaa madaxweynaha waxa kala qayb galay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada militariga booliiska asluubta badda xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi waxaana uu madaxweynuhu halkaasi salaan ka qaatay cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Somaliland isagoo kormeer ku maray qaybaha kala duwan ee dugsigaasi taliyaha ciidanka booliiska Somaliland sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa isaguna dhankiisa Xuseen difacadani hormood u tahay dib u habeyn ballaaran oo la doonayo in ciidamada lagu sameeyo difcadan maanta madaxweyne halkan taagan oo difcadii 12aad oo ay ku jiraan ciidanka madaxtooyada qayb kamid ah iyo in yaro ciidanka traffic kamid ah ciidanka maaragtay immigration-ka iyo ciidan booliiska oo halkan soo tuban waa difcad iyaguna aanu laga soo qaatay gobolada Somaliland oo dhan baa laga qoray si equal 6 bilood ka hor January bay halka yimaadeen waa dhalinyaro aan balwad lahayn oo marka hore ay shuruudaha kamid ahayd inay balwad yeelan waa dhalinyaro loogu talagalay 25 jir inay ka weynaan waa dhalinyaro akhlaaqiyan u dhisan waa dhalinyaro reformka kamid ah reformka la doonayo booliiska in lagu sameeyo anagoo fikradda ka duulayna ayaa la soo diyaariyay dhalinyaradan halka 6 bilood bay ku jireen dhamaantoodna madaxweyne marka in yar laga reebo laba qaybood oo yaroo ku xoojinay traffic iyo maaragtay qaybaha mooyaane dhamaantoodna waxaan ugu talagalay oo aanu imikadan ay u diyaarsanyiin inay birmad noqdaan boolisku waxa la yiraahdaa waa ilaaliyaha nafta shacabka iyo dadka Somaliland dhamaantii iyo hantidoodaba ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn bogaadiyay ciidamada cusub ee uu tababarkaasi u soo dhamaaday waxaana uu si hufan uga sheekeeyay muhiimadda ay ciidamadu u leeyihiin shaqooyinka qaranka marka hore waan hambalyeynaya dhammaan ciidanka booliiska hambalyeynaya daayirta maanta tababarka loo xiray furay ayaan hambalyeynaya ciidamada kale iyo madaxda hambalyeynaya qarankana waa hambalyo intaasoo ciidamada oo aqoon amni iyo difaac iyo aqoon dadnimo soo korsta ay ku soo kordhayna aad baan qaranka u hambalyeynaya waxaan sheegayaa dhalinyaradiina daada yar maanta markaa tababar ka baxdaan halka calaamada qaranka ku qaadi doontaan kalarka shaarkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab